بسم الله صباح وناكسن وين سلامي دمانتين أيامها نوينجي ودني شوكوين أما دنك تاريخ ده أما دنك حالة ده دجان سياسات iyo dhaqan dhaqaale ee Soomaaliya gaar ahaan Puntland waayihii dambe dhacdooyin xoog leh ayaa ka jiray deegaanka Puntland waxaa lagu yiri nin baa wuxuu yiri musiibadu markay dhacayso mid uma timaadee raxan bay u timaadaa waxaan ka wadaa horta bal marka ugu horeysa abaar xun baa ka jirta dalka meelaha la isugu tegay oo dhinaca kan mudug bari mudug Jariiman iyo agaarkeeda iyo dhinaca Ayl waxbaa ka da'ay roobkii dhawaan laakiin dalka intiisa badan waa abaar dhinaca kan sanaagna waxbaa ka da'ay malaha markay meelo yaryar ama jaamooyin yaryar roob ku da'o waxaa dhacaysa in ummadda reer miyiga oo dhan iyo xoolaha halkaa loo raro oo halkaa isugu tagaan weliba xooluhu ma hayaami karaane tamarxumo awgeed gaadiid baa lagu qaadaa bal ka waran dadka aan gaadiidka haysan oo dhaqaale isaga bixiyaan gaadiidka jirin sidee bay ku dambayn doonaan xoolahoodii maxay ku dambayn doonaan allah sahlo abaar xun baa jira intaa waxaa ka daran meelihii roobku ku da'ay oo yaraa yaa waxa dhacday ayax baa ku habsaday ayax wuxuu ka mid yahay musiibooyinka la isu soo diro reer miyigu kuma baraarugsana oo waxay leeyihiin maxaa laga rabaa ayax iyo xasharaadka maxaa loo leynayaa naf baa la goynayaa iyo wax inkaas hadda ayaxu haddaad xoogaa la socotay statisticska laga qoray yaa baa ilaahay kuu keenaya oo maxaa ka mid ah horta ayaxu isagoo swans ama raxan waaweyn u socda maalintii wuxuu jaraa 200 kilomitir innaga ayaxa inoo yimaada wuxuu inooga yimaada xagga iyo laba degaanka carbeed waxaa la yiraahdaa desert logs muddo dheer tan iyo yaraantaydii waa lala dagaalamayay oo hay-adahan qaramada midoobay waa la dagaalamayeen FAO iyo waxa la mid ah haddeer Puntland waxaa jira diyaarado yaryar oo taga meelahaas ayaxa lagu soo sheego oo soo buufiya dadkana yani waxaa loo diraa sadcaalo soo wacyigeliya dadka reer miyiga ah oo aan ku baraarugsanayn waxyeelada khatarta ah iyo nabaad guurka uu keeno ayaxu sida intaa haddaan idhi ayaxu statisticska layga sheekeeyey oo culammadu aaminsan tahay waxa weeye horta ayaxu raxantii weynba ama kudladii weyn oo ayaxaas ka midaba waxay la cunto tahay oo la naqdaaq tahay 1 milyan oo maroodi had baru fiirsada ama 4 milyan oo sac intay cunaan bay cunaan 2 gram buu ayaxu miisaankiisu dhan yahay 2 gram oo cunaana wuu cunaa markuu dhulka dhasayo oo koronkoro samaynayo dhowr dambiilood oo xana oo midiiba ay tahay 90 ayuu dhulka ku aasaa dabadeedna halkaa koronkoro ayaa ka soo baxaysa oo ayax kale u dilaacaysa ayaxu markaa sidaasuu khatar u yahay taasuu
waa arrinta taagan oo abaartii Puntland ugu darsantay. waad ogeydeen in xaaladii shilinka Soomaaliga soo ku dambeeyay in Puntland aysan ka socon lacag shilin Soomaaliya. cidda ka dambeysay saa waxay ku dhacday isweydiin iyo baaritaan bay u baahan tahay. Soomaaliya inteeda kale lacagta waa ka socotaa. waxaa kaloo jira dhacdooyin waaweyn oo ka dhacay Puntland. waxaa ka mid ah dagaalkii qabaa'ilka Saxmaygaag iyo Sanjabi. arrintaasu muddo dheer bay soo jiitamaysay, waa la ogaa. dabadeedna qaraxaas ay tobanaan dada ku geeriyoodeen ayaa ka dhashay inay beelo walaalaysdiraan oo waxaas ay ka dhacdo. arrinta waa la ogaa. waxaa dhib yaraystay oo hawshoodii aan qabsan nabadoonnadii loogu talagalay inay nabadda ka shaqeeyaan oo aslaaxaan nabadda. macnaha waxa weeye nabadoonnadeennii iyo caaqiladii iyo ismadii waxay ka howlan yihiin siyaasad iyo waxaan loo idman ee hawsha loo idmaday waa ka bixin. dabadeedna wax soo sheega iyo wax celiya colaaddaa soo socota waa la waayay. waxaa kaloo hawshoodii yaro gabay hay-adaha amniga ee Puntland oo ay ahayd inay gartaan khatarta halkaa ka soo socota. arrintuna waxay ka dhalatay waa degaan la wada dego oo dad rabaan inay guryo iyo magaalo ka samaystaan. taasuna waxay keenaysaa xaalufin. sidaas ayaa waxa dhacday in dhibaatadaas ka dhacday. dowladda Puntland hay-adaheedu amnigu arrintaa waa ka warhayeen, laakiin waa sahladeen. run ahaantii hawshaas waa gabeen. midu waxa weeye arrintaas waxay u baahan tahay baaritaan bay u baahan tahay siday ku dhacday, sida loo sahladay. waayo haddii kale waa soo laalaamanaysaa iyadoo kalaa imaanaysa berito. waa arrintii Boosaaso ka dhacday. iyada ruuxeeda baaritaan bay u baahan tahay. maaha wixii waa la xalliyey oo keliya. wixii waa inaysan soo noqon ee baaritaan lagu sameeyo oo la ogaado sababaha keenay arrintaanu inay dhacdo. waxyaalaha ugu waaweyn oo fadeexada ah oo musuqa ah oo haddii la kuuna yahay yacni Puntland oo dhan ka nixisay waxa weeye doorashadii sida loo maamulay iyo fadeexada iyo musuqmaasuqa maaliyadeeda halkaa ka dhacay. halkaas waxay u baahan tahay hay-adaha ku shuqlo oo dhan sida Tibeg iyo waxa la mid ah iyo kuwii kaloo la shaqaynayay iyo shakhsiyaadkii arrintaa ka howlanaa in lagu sameeyo baaritaan degdeg ah oo la ogaado. haddii kale dowladda ayaa mas-uuliyadda qaadaysa. arrintaasu waxa weeye nasiib daray ku dhacday. himiladii ummadda Puntland weeye 20 sano. ma ahayn inay saa ku dhammaato. ma ahayn sidaas dayaca iyo maaragtay arrin aan la filayn loo fadhiyay inay ka dhacdo meeshaas oo weeciso wax allaaleeto wixii mustaqbalkii Puntland oo saaka intaasaan jeclahay inaan kusoo geeyo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. weydin salaam.